markii la burburay dawladda jajabtay waxa weeyaan gabdhuhu marka ayay soo baxeen guriga way ka soo baxeen tartan baa yimid yaan reerkaaga lumin yaan dadkaaga lumin bulshada ka qayb ka badan yahay dadku dareenka qofeed dareenkii 20 sano ama 10 sano ka hor jiray uu ka wanaagsan yahay haween ahaan u taagana sidii aan uga qayb qaadan lahayn dhibaato kasta oo Puntland ka jirta yareynteeda waa isku yimaadaan waa isla tashadaan waa iskaashadaan sida aan yeelay yiraahdaan waa isku raacaan wayna ku guuleystaan gabdhuhu marka ay waxna madilaaneen haweenku waa xabagta isku haysa bulshada qoysku wuxuu ka kooban yahay hooyo ninkii qabay wiilashay dhashay wiilashay qaraabada la ahay intaas waxa weeyaan hadii hooyadu ay wacyigelin fiican iyo orientation fiican ay siiso waxa weey nabad bay keeni karaan waxay u diidi kartaa ninku inuu dagaal ka aado wiilku inuu dagaal ka aado waa ay noqdaan family isku xiran nabad ka wada shaqeeya waxaan dhihi karnaa mar walba haweenka loo isticmaalo xabagta isku haysa nabadda oo nabadda keeni karo qoyska isku haysa أنا waxaan ku barbaaray dhulkii oo aan dawlad lahayn markaan arko adduunweynaha dawladaha dhisan waxaan jeclaaday inaan dawlad dhisano waxaan niyadeeda ku baraarujiyay inaan wax barto ka bacdi inaan dhulkayga horumar u sameeyo inaan nabadgelyo helo inaan dadkayga kubadka soo koriyo ay bari ka maalin nabadgelyo xumada ku barbaaray inaan ku barbaaray inaan dadkayga u sheego adduunweynaha inay la sintaan oo la tartamaan oo nabadgelyada ka jirta inay nabadgelyada ayaguna ku dadaalaan intii ka dambeysay burburkii dawladda qaranka Soomaaliyeed dumarku waxa ay dadaal weyn ugu jireen in ay buuxshaan dhammaan baahida bulshada laga bilaabo heer qoys ilaa iyo heer qaran inkastoo ay kooban yihiin fursadaha dumarku heleen isla markaana fara badan yihiin caqabadaha hortaagan haddana dumarku waxa ay isbedel la taaban karo ka dhaliyeen dhaqaalaha horumarka iyo arrimaha bulshada dhanka Puntland dumarku waxa ay kaalin lixaad leh ka qaataan nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha gobolada dhan bay ka shaqeeyaan intii aan Puntland jirin waxa ay ahayn dadka kaliya oo nabadeeyay Puntland haddaan tusaale ka soo qaadano Boosaaso markii ugu horeysay oo dagaaladu ka jireen muxuu ahaayay jirida badan ee ka sameysantay dhibaatadu dhacday dadka la dili jiray wadaadada masaajidka aad jirin Puntland labadeedii garab isdirreen dadkii ka shaqeeyay oo booliska ugu horeeyay abuuray oo qayb fiican ka qaatay waxay ahaan gabdhaha ilaa ay qabsadeen dekedda ilaa ay qabsadeen kontroolada ilaa ay canshuurtii la wareegeen waana meeshii lagu soo gaaray oo Puntland ka sameysantay iyadoo oo nabad ah oo muxuu ahaa Puntland ay shaqeynayso wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska ee dawladda Puntland waxa ay astaan u tahay halganka haweenku ugu jiraan in ay si buuxda uga qayb galaan arrimaha bulshada maamulka iyo hoggaanka dalka haweenku waagu horeeto dawlad baa jirtay Soomaaliyeed markiisa dawladdu dhacday wixii dhan waa isbedeleen burbur guud baa dhacay haweenkii waxay noqdeen kuwo ku iskuulka dhigan jiray iskuuladii bay waayeen kuwii shaqayn jiray shaqadii bay waayeen kuwii xaasaskooda ahaa oo odayaashoodu biili jireen odayaashii baa qaarkood ka dhintay qaar waa ka shaqo beeleen waa la qaxay hantidii wixii la haysto dhan baa laga soo tagay caqabada horeyso horta ka hortimid waxa weeye deegaankii ma yaqaaniin dhaqaale ma wataaniin iskuulle ma jirin markii intaasoo dhan la soo qaxay intii markii la degay oo iskuuladii wax yar la helay dumarku waxay ahaayeen talaabada u horeysa oo ay bilaabeen ururada bulshadu waxay ka bilaabantay haweenka haweenku waxay bilaabeen inay iskuulo furaan haweenku waxay bilaabeen inay dhakhaatiir furaan haweenku waxay bilaabeen inay NGO furaan laakiin haddeertaan golayaasha deegaanka cod kuma lihin markaanu hadlayno saddex baanu hayo codka waana ka qaadaa
anigu hal mar baan sharxay waxa la sameeyaa guddiga anshaxa saa waxaan ku yiri guddiga anshaxa gabdhaha inaan ku darsoonaa marka inaad isku tarshatid oo adigu dadnimadaada ku tarshatid oo taada tacliinta leh oo waaya aragnimada leh oo afkaarta leh oo hadli karta oo wax qaban karta aad dabada qabsatid oo idinku isku dhagtaan oo tarshataan idinku isku tarshataan horta maxaa idin diiday maamul baahinta siyaasadeed tan dhaqaale marka waxaan ka hadlaynaa kow maamul baahinta siyaasadeed wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska waxaa la aasaasay sanadkii 2005 waxa ayna saldhig u noqotay isku xirka horumarinta u doodidda iyo mideynta codka haweenka Puntland. 2005 waa wasaaradda haweenka la helay annagoo haysano waay aragnimo nagu filan oo dhinaca civil society ah qorshii ugu horeeyay oo 3 sano ugu horeysay ayaa sameeyay qorshahaas waxaa ka mid ahaa in wax laga bedelo muxuu ahaayay ka qaybgalka haweenka oo aad u yar oo hadda aanu soo xaqiiqsanay in xoghayn iyo uu ku kooban yahay nadiifiye kor u qaadidda aqoonta iyo awoodda waxqabad ayaa inta badan sabab u ah horumarka iyo guusha dumarku gaareen 10 sano ay ugu dambeeyay 10 sanadood oo la soo dhaafay marxalado badan baa jiro isbedela hadday xag siyaasad noqoto hadday xag dhaqaale noqoto hadday xag horumar noqoto intaba dumarka maxaan ku dhahday saameyn badan bay ku yeesheen horumarka waxaa laga gaaray ugu horeeya xagga waxbarashada haweenka aad bay wax u barteen maanta waxa weeye wasiiray leeyihiin agaasimo guud bay leeyihiin waxay leeyihiin wasiir ku-xigayaal bay leeyihiin siyaasadda aad bay gudo iyo dibadba uga qayb galaan shirarka caalamka inta badan haweenka qaybta civil society-ga waan tagnaa waan ka qayb galnaa وإن أي دولة حوجسا ciidamada hubkooda iyo dhaqaalahooda waa inay qaramaysaa hubka yaalla wadanka oo u noqda hub dowladeed in ciidanka qabanaya aysan gaajaysanaysan dhibaataysanaynin huban maata askar maata waxood u dhan yihiin ama dhaqaala ha noqoto ama ha noqoto saanadba ha noqotaa qaabkii loogu talagalay sida loo dhiso qaab dhismeedka looma dhisin oo ay dawladdu ugu talagashay looma dhisin oo dadkii loogu talagalay ayaa meeshii isqorin waxa isqoray dad qabiilo lagu soo doortay oo aan buuxin karin kaalimihiisii oo ummadii loogu talagalay meeshaan ahayn dawladduna dhaliil waa leedahayoo waxay ku leedahay ilaa ay majo isku taagto waxa fiican inay dabagal ku samayso hantida meesha kharashka ay gelisay meel walba dhismo walba waxa ka galay kharash badanaa dadka wax laaya waa dad baahiyeysan ama waxay tahay waa dhalinyarada badanaa in loo sameeyo xirfado lagu mashquuliyo oo ay ku shaqaystaan iyadoo ay jirto aqoon la-aan qofku haddii aanu aqoon lahayna aanay nolosha iyo horumarku sideedaba aanay qiimo badan aanay u samaynin dhanka xoojinta nabadda dumarku waxa ay buuxshaan kaalin lixaad leh dhinacyada dib u heshiisiinta beelaha xarunta ururka bisha cas ee dhaqan celinta naafada ee magaalada gaalkacyo waxa ay u adeegtaa dadka ku waxyeeloobay colaadaha shilalka iyo qaraxyada sanadkii 2010 xaruntu waxa ay dhaqan celin u samaysay dad tiradoodu ay gaarayso 570 dadkaas oo 114 ka mid ahi ay ku waxyeeloobeen colaado ka dhacay magaalada gaalkacyo gudaheeda
zamzam cali aadan waa hooyo leh 5 caruur ah. zamzam waxa ay ku naafowday dagaal ka dhex qarxay labada xaafadood ee koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo bishii November sanadkii 2009. dagaal magaalada labada dhinac lagu dirirayaa ka socday suuqa dhexdiisa ah. suuqana aad dhinaca ka sokaan ka soo laabtay. dagaalkii markuu sii batana dhinacaas kale qoryaha laga soo riday. guriga waa laga kala maqnaanay ciyaalka joognay odagu magaaladu jiray. goor barqad iyo dadka dhan suuqa jiraan bay ahayd. markuu soo dhacay ciyaalkii aniga firkina gaaray aniga koomaan meesha ku galay dad dariska iyo ciyaal ma walaalahay meelaha ka soo maqlay joogta ay yimid nin dariiqa maryaa la igu yaray soo qaaday kabacdi 2 bilood baan jiifay oo dhaawac ahaa meel walba daldaloosho lugna wuu gooyay lugna naaf ka dhigay hadda labada lugood baag bay igu jiraan caruurta firir baa ku jira 5 caruur ah firir ku jirta wiil lugaha hadirta way jilicsan yihiin gabar gacanta si fiican uga shaqayn karto wiilka kale gabadha kalena sanka iyo xuga jira lugu inta jabiyeen laga baxshin kala hada ma aqaan ma aaminsan inaan socon karo maadaama lugtii joogtana ay meelo badan ka goonayda dhaawac ahayd isma dhahayn waad soconaysaa laakiin alxamdulillah waan socday markay tababareen inkasta oo zamzam ayaan marnaba ka soo kaban karin dhaawaca gaaray haddana xaqiiqdu waxa ay tahay inqilaafka beeluhu si fudud u sababi karo colaad waxaana ay tahay cabsi ku wada jirta maskaxda dadka yaasiin cabdisamed waa ganacsade isla markaana ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Gaalkacyo. yaasiin waxa uu xogogaal u yahay kaalinta dumarku kaga jiraan nabadaynta iyo dib u heshiisiinta beelaha ku nool deegaanka iyo waliba waxyaabaha sababay in dumarku buuxshaan kaalinta. magaaladani marka waxay ka mid tahay meelaha xuduudda qabaa'ilka Soomaaliya isku laayay ee saameynta weyn ay ku yeesheen hadeerna la wada degan yahay oo ay wali calaamadihii ka muuqdaan marka dumarka jooga way uga nugul yihiin dhibaatada dumarka gobolada kale xilliyadii dagaalkay soo joogeen wax colaadu tahay way soo arkeen dhaawacii bay arkeen dhimashadii bay arkeen agoontii bay arkeen waxay arkeen rag la'aantii wax walba culays oo geeridu ay leedahay ama colaadu iyo waayo aragu noqdo sidaasaa kalifta marka inay firfircooni dheeraad ah ay leeyihiin oo markii la yiraahdo dhibaataa jirta ay badana muujiyaan dareen siyaada oo iyo walaac ay ka qabaan haddii colaadaasi fido inay saameynta ugu badan iyaga ku yeelanayso caruurtii inta nugul. juqraafi ahaan Gaalkacyo waxa ay ku taal bartamaha Soomaaliya waxa ayna leedahay muhiimad ganacsi hase yeeshee magaalada waxa saameyn ku yeeshay dagaalka sokeeye ee ka dhacay dalka kaas oo sababay in magaaladu u kala qaybsanto 2 qaybood. khilaafka dhexmara labada beelood ee wada degan magaalada mararka qaarkood waxa uu gaaraa in isu gudubka labada dhinac iyo ganacsigu istaagaan. inta badan marka xaaladdu adkaato guddi ka kooban 10 dumar ah oo ka kala socda labada dhinac ayaa qaata kaalin firfircoon dhanka turxaan bixinta khilaafka iyo soo celinta nabadda. inaanu guddi noqono baahida keentay waxa weeye mudug waxay u baahan tahay waa meel bartamaha Soomaaliya dadku ku badan yahay dadku macnaha oo maaragtay dad badan ku soo barakacay dadku waana wada nool yahay magaaladana waa wada joogaa waana wada ganacsadaa konfliktiga ka dhaca magaalada dhexeeda iyo tuulooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhacda gobolka mudug inaanu xalino dhinaca gabdhaha wixii kaga aadan ay gabdhuhu xaliyaan baahidii taagan oo muuqataa noqotay oo aan loo asaasay oo aanu macnaha aanu ku talagalay inaanu ka shaqeyno. Xaliime Ismaaciil waa xubin ka mid ah guddiga dumarka ah waxa ayna ka howlgashaa koonfurta magaalada.
xaliimo iyo xubnaha kale ee guddiga waxa ay si joogto ah ugu howlan yihiin xoojinta nabadda, dib u heshiisiinta iyo weliba arrimaha la xiriira kor u qaadidda awoodda dumarka dhanka ka qaybgalka buuxa ee arrimaha bulshada. laakiin haddaysan nabadgelyo jirin soo qaxaya hadday baahi jirtana soo qaxaya ilaa muxuu ahay 92 markii ay bilowdeen shirarkii nabadeynta haweenka waxay ahaayeen goobjoogay ahaayeen waxay u xirnaayeen in ay ka qayb qaataan nabadda markii ay iskeeni waayaan ragga in ay dhex galaan waxaan qabsanaa tareeninadaasayta oo lagu dhisaayo waay aragnimada haweenka in wacyigelin loogu samaynayo in ay bartaan in la xoojiyo awoodooda in ay bartaan see network loo sameeyaa see fundraising loo sameeyaa see urur loo maamulaa. nabadda iyo dareenkuba guriga ayuu ka dhashaa cirka kama soo dhaco dabadana kama yimaado hooya ninka ayadu qabaa ilmihiina ayadaa dhashay wiilkiina ayadaa dhashay weynaa oo dagaal tagahay waa inay hooyadu ilmaha ku hanuunisaa inayna qabiil lahayn ay leedahay dadweynaha ka mid yahay ninkeeda waa inay ku hanuunisaa haddaa dagaal tagta isoo laaban mayso waa inay qoyska marka hore ka unugtaa hadhowna dariska u tagtaa tiraahdaa aan nabadda wadno oo bilowno. gabar nin qado u karin karta male mid caruur u hayn karta male mid wax u raadin karta male kulli banaanka looga soo baxo haddii si ninku salaadii fadhi ku diri aado oo dulma aado oo guriga loo koolkoolinayo oo caruurtii loo hayo oo guriga looga dambeeyo wuxuu maqlahayo male kulli waa ka soo bixin markaan laagi gabdhii banaanka loo soo bixiyay bal ama warkayaga maqla nimanku inayna maqlaan iyo inaan ka guurno oo halkaas iyo aan axada iskaga galno iyo inaan isku mid noqono ay war aan la maqashaan danihiina ka shaqeynayna dantiina ka shaqeynayna walaalnimadiina ka shaqeynayna waa la dhexgali karaa waana laga hadli karaa. howlaha guddiga waxaa saldhig u ah iskaashi iyo midnimo waxa uuna in badan ku guuleystay in uu xal nabadeed u helo khilaaf keeni karay colaad iyo burbur. waxaa dhacday ayaan dhexdeera in labo shil inuu ka dhacay xoogaa yaraho magaalada Gaalkacyo baabuur baa waxaa lagu kala qabsaday labada dhinac oo kontaroolka iyo kontaroolkaas baabuurta qolana xaggay raashin ka waday qolana xaggay qudaar iyo ariye iyo bay wadeen waxbay wadeen. waxaa lacag isu sheeganayay nin reer beledweyne iyo gabar reer Gaalkacyooda xisaabo ganacsi baa markii hore dhex maray kadibna xisaabo adigu lacag ilaa $90,000 lagu qiyaasay yaa kala galay lacagtu waxay lagu yeeshay ninka reer beledweyne muddaa gabadhu erge ugu jirtay odayaal baa ka wada hadlay qolo walba baabuurta meel ku isbaareysatay markii hore ta baabuur dhinacaas baabuurtii baa dhinacaas qoladaas isbaareysatay baabuurtii oo xiratay markii dambana qoladan waqooyi baa baabuurtii xiratay oo saasa baabuurta iyadoo xamuulkii la taagan yahay ay u taagnayd gabdhaha iyaga waa la soo wargeliyay waxaanu ka qaadanay doorkii aanu ku lahayn baan ka qaadanay. magaalada Gaalkacyo waxa ay bardhaxaad u tahay sayladaha waaweyn ee dalka xanibaada ku timid isu gudubka gaadiidka waxa ay si toosan saameyn ugu yeelatay dhaqaalaha iyo nolosha aadanaha. guddiga dumarka ayaa noqday cidda qura ee awood u yeelatay in nabad lagu maareeyo marxaladda cakiran iyaga oo u horseeday odayaasha iyo waxgaradka labada dhinac inay nabadgelyo uga xaajoodaan khilaafka. gabdhaha reer mudug kuwa Puntland ayaana dhihina gabdhaha reer mudug waxay qabtaan hawl aan ninna u qaadan karin hadduusan goobjoog ka ahayn hal tilaabo ma aanu qaadneen haddii aan gabdhaha Soomaaliyeed ama gabdhaha reer mudug nala shaqeynay waa dhab weeye xaqiiqo weeye markiiba waxay qaateen xabadda oo soconaysa la dhex galay oo lagu khasbay dhalinyaradii labada dhinac inay xabadda joojiyaan. inkasta oo ay badan tahay khatarta la xiriirta hawsha xabad joojinta iyo maareynta colaadda haddana dumarka waxaa u muuqday oo qura in ay xakameeyaan colaadda
isla markaana soo ceshaan nabadda. qolo walba raalli waxay ka tahay in aanu xaggana ama tagno ama halkaan nimaadno oo dhibaatadaasi looga hortagi lahaa aanu si dagaalkaas loo joojiyo. maryo cad baanu soo xiranay, waxaanu ku tashanay in dagaalkaas usoo mar dambe dhaqdhaqaaq dambe samaynin ee meesha uu ku ekaado oo labada beelood meeshoodaas ay ku ekaadaan inta odayaasha iyo dadku xal ka gaarayaan wax dhib oo dhaca inaysan jirin oo ka dhacaysa jirin. gabdhaha yaga dhinacaan halkaan iska abaabulnay subaxdii markii waagu bari adigu 2 saac ama 3 saac meelahaas ay ahayd baan tagnay waa lugaynay waxaan u tagnay gabdhaha geeskaas oo walaalaha iyo aan u tagnay gabdha aad iyo aad u qaaliya marka waxaanu tagnay meeshii baabuurta lagu haystay dhalinyaradii waa la hadalnay kuwii baabuurta haystay waa la hadalnay taleefanku waa u socday wiilal baa halkaan iyo halkaasba ka shaqaynayay markii dambeeto baabuurtii in la sii daaya baa lagu guuleystay galabtii ilaa annagu kama aanan soo darin baabuurtii la karaweysaday baabuurtii kuwaana waa la soo gudbiyay kuwaana waa la gudbiyay adigu kadib raggu xaajada ha dhameeyay laakiin dowrka ugu firfircoon waxaa lahaa gabdhaha markii dambena gabadhii wax sheeganaysay gabdhaha gobolka laftooda yaa waxaan filayaa inay wax badan waxa ay doonaysay ama ay ka qanciyeen afar kaga qanciyeen ama dhaqaalaha kaga qanciyeen inay xal kala gaareen dhimashadii labada dhinac ka dhacday dhaawiciina dee dadkii ehelka ah markii wax dhex mareen unbaa ka heshiiyey. dumarku waxaa kale oo kaalin la xaal ka qaateen dib u heshiisiinta colaad u dhaxaysay beesha Shiiqaal ee degan gobolka Galmudug isla markaana socotay muddo ka badan 10 sano. colaadan waxaa ku nafwaayay 13 qof waxaana ku dhaawacmay dad tiradoodu gaarayso 42. talada guwaabinta iyo wacyigelinta dumarka waxaa u dheeraa iyaga oo dhaqaalahooda u huray xal u helidda colaadan. runtii dadkii aanu u tagnay waxaanu gelinay xamaasad iyo dhiirigelin waxaan u muujinay inaan dagaalku faa'iido lahayn waa ku calaacalnay waa ku ooynay waa tusaaleynay nin walba adiga waxaan khasaarahayn ma ku soo gaaray maya wiilkaagii soo ma dhiman ha bakaartaadii soo lama gubin ha gurigaagii soomaha waxa qiicayo oo dabka ah oo dambaska aad kor fadhiid waxaas ka daran ba haddana soo socda walaalayaal dagaalka naga joojiya waa calaacanlay waa ku ooynay gabdhihi waa isku duubeen raggii nin walba oo qori watay oo maaragtay dhididkiisu soo baxay xanaaqsanaa dhaxdaan qabanay waa garkaan qabanay waa isku boohinay dharkaan iska siibnay gambooyinkaan iska tuurnay runtii raggii waxa weeye qaar nala ooyay baa jiray markaan saa samaynay oo calaancalay oo madaxa qabsaday odayaal ooyay baa jiray waxaa sayda qaaday walaalaanta ku dhacday nin laanta ku dhacday maxay taa balaanta ku dhacday waa anaga cid kale oo ku dhacday ma jirto rafaadkii silcu wuxuu qabsaday waa anaga cid kale ma jirto waxa noo haray waxa waraabaha duurjooga iyo haadka inuu nacuno bis baa noo haray hoy baanan lahayn hanti baanan lahayn raggi noo shaqay lahaa waa ragga la wada dilay waa ragga qoryaha la iskugu dhiibay waa ragga aan asayda ka wada qaadnay yaa marka weeye waa inaan isku bandhigno waraabaha dibjirka iyo haadka la wax kaloo noo haray ma jirto wax kaloo aan ka shaqaynayna ma jirto waxaan isleeyahay waxaa helay hadalkii xaqa ahaa gabdhaha ayaa helay baan isleeyahay inta kale waxaan isleeyahay kulli waxay wada ahayd wax aan baahi loo qabinba gabdhuhu sida ay hadalka u yidhaahdeen waxay ahayd si cajiiba ma maantaad annagoo asay wadna oo agoontiina hoos joogaan hebel baa jid istaagay iyo muxuu ahaa badar baa kan ahaa iyo waxba yaad ka hadlaysaan bay yidhaahdeen markay gabadhu halkaa marinaysa ani waan ishayn waayey ilin baa iga timi
geediga meesha loo yahay iyo ragga la rabay inay geedigaa geliyaan dadka iyo meesha laga hadlayo yaa waxaad moodaa maa bayna samaa'i wal ardi inay isu jiraan oday wax ma dilin gacan ku dhiila maaha mana dirin wiilkiisa wax soo dil ma odhan habari waa la mid anugu intaas waxaan wada hooyo iyo aayo iyo dumaashi habarina wax ma dilin gabari wax ma dilin oday wax ma dilin oday wax ma dirin oo waxa la soo dilo ma odhan dhalinyarada kacday oo dagaalka la fila awoodda inaad saadhaan baan idinka codsanayna annaga haddii aan nahay xarunta horumarinta cilmi baarista Puntland PDRC waxaan ka mid nahay ururada maxalliga ah ee ku howlan arrimaha nabadeynta iyo xal u raadinta gobolka Mudug annagoo gaar ahaan ka eegayna isu keenida labada bulsho oo meeshaasi degan koonfurta iyo waqooyiga Gaalkacyo sanadii 2007 xaruntan horumarinta cilmi baarista Puntland waxay qabatay kulan weyn oo u qabatay 100 haween oo ka socda labada dhinac ee magaalada Gaalkacyo kulankaasi waxa ka soo qayb galay 50 dumar oo ka yimid koonfurta iyo 50 ka yimid waqooyiga magaalada Gaalkacyo ujeedadii ka dambeysay kulankaasi waxay ahayd marka koowaad in la xoojiyo isdhexgalka bulshada magaalada Gaalkacyo marka labaadna waxay ahayd muujinta doorka haweenku ay ku leeyihiin arrimaha magaalada Gaalkacyo haweenku waa ay joojin karaan tusaale ahaan laba reer ayaa isdagaalaysa reerka suurtiga hadii hooyooyinkooda ay yiraahdaan nanku ma isdagaalaysaan gabdhahooda ay yiraahdaan jooji dagaalka intii baankada u dhiibi lahayd markaas ayay xalin kartaa dhibka deegaanka iyo waliba gobolada kale ee ku xeeran si weyn ayayna uga qayb qaadan karaan haweenka fikir ahaanteeda dagaalka raggu ay sameynayaan marka ninkeeda tiraado ma ka bixisid iridan never hadii aad dagaal aad inta asaysan adiga dhan bay dhaaf kulankaasi wixii ugu weynaayo ka soo baxay wuxuu ahaa in la magacaabo 10 gabdhood oo guddi ah oo ay gabdhihii meeshaas ugu yimid magacaabaan inay wakiil ka noqdaan gabdhaha gobolka Mudug ama ay matalaan guddigaasi wuxuu noqday aalad ama wax noo fududay haddaan nahay PDRC inaan wax badan kala shaqeyno gabdhaha magaalada Gaalkacyo PDRC waxay siisay tababaro badan kulamo badan bay u qabatay ayaga dhexdooda ayaguna wax badan bay bulshada u qabteen oo magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba wax badan bay ka qabteen gaar ahaan markii dhibaatooyinku dhacaan in ay dhibaatooyinkaas dhex galaan ayagoo gabdhihii labada dhinac oo iswata ah inay gabdhihii kale kaashadaan oo ay markay hawl qabanayaan ayagoo tobankoodii iyo ayagoo kaashanaya gabdhihii kale oo gobolka inay wax badan qabtaan bay fududaysay March 2011 gabdhuhu waxay qabteen kulan weyn oo ay iyagu soo abaabuleen kulankaasi PDRC baa ka caawisay sidii loo qabashadiisii laakiin fikirka ayaga lahaa ujeedada kulankaasi ka dambeysana waxay ahayd isbaraarujin iyo inay wali muujiyaan doorkoodii iyo inay ka shaqeeyaan sidii bal iyagu ay isugu keeni lahaayeen gabdhaha gobolka Mudug kulankaasi kaliya kama soo qayb galin gabdho kaliya kama soo qayb galin waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin badan oo ka yimid labada maamul ee Mudug galmudug iyo Puntland waxa kamid ahaa dhinaca Puntland dadkii ka soo qayb galay wasiirada haweenka iyo arrimaha qoyska oo iyadu kulankaas maanta goob joog ahayd oo yani ahayna dadkii soo dhaweeyay fikirkan gabdhahaas guddiga in la sameeyo waxa kale oo ka soo qayb galay gabdho kale oo dhinaca koonfurta ah oo iyaguna dawladda galmudug ka yimid iyo waliba mas'uuliyiin badan dadkaas oo dhan marka waxaad moodaa inay u riyaaqayeen doorka ay gabdhuhu ku leeyihiin nabadeynta gobolka Mudug waxaanu leenahay annagu waa is ognahay dumar haddaan nahay qalbigayagu waa fiican yahay waa jecelnahay nabadda maxaa yeelay waxaana gurigii nabadda annaga carruurtii marka dagaalka ugu horreeya dhaco ninku waxaa laga yaabaa guriga qoriga inta kala booday inuu bannaanka la aado xabadda aado laakiin waxaa guriga ku soo noqonaya oo carruurtii kii dugsiga jiray iyo kii iskoolka jiray iyo muxuu ahaayey dib ugu soo noqonaya waa dumarka dhaydhayd buu u baahan yahay nabaddu waxay u baahan tahay ka shaqayn badan bay u baahan uma baahna caadifad uma baahna hoogay waxaa la diray adeerkay
dagaal baa reer hebel lagu soo qaadeen intaasay naga dileen uma baahna waxay u baahan tahay marka dagaal ku dhaco dhayid bay u baahan tahay booqadhayd bay u baahan tahay waxaa loo baahan yahay gabdho geesiina oo dhexda u xirta oo xabadoo dhex socota dhex istaaga oo yidhahda xabadaan anagu ma rabno PDRC aad baan ugu mahadnaqaynaayo ilaa ay dhowr sannadood waxay soo wadeen haween ay nabadu qabanayeen guddina waa ka soo saareen sharci guddigaas waxaan ilaa idinkiis rabnaa inaan sii ballaarino xoojiyo waxaan rabnaa ilaa idinkiis inaan 10 iyo 10 ka dhigno ujeeddada aan uga dhigayna waxaa weeye inaanu sii ballaarino inaanu caddayno nabadu inay daacad naga tahay waxaanu rabnaa haweenkaas 10 iyo 10 markay isku yimaadaan xil weyn baa la saaray xilka la saaray waxaa weeye waxay mas-uul ka yihiin bulshada qaybaheedii oo dhan inay horyeel u noqdaan hooseed u noqdaan marka nabadda rasmiga ay tahay dumarku aad bay ugaga shaqeeyaan oo waxa weeye dadka nabaddu ku xiran tahay wasaaraddu gacan badan ayay ka geysatay sidii aan isugu sii hayn lahayn oo isugu sii adkeyn lahayn waxaa haddana kusoo aadantay xilli agreement nabadda ay wada galeen heshiis nabadeed ay wada galeen Puntland iyo Galmudug taas oo gabdhuhu guddiga u ahaayeen kana mid ahaayeen guddi hoosaadyada nabadda qayb ka mid ah marka waxaan rabnay inay mar labaad isku yimaadaan heshiiska looga sheekeeyo nabaddii looga sheekeeyo si ay halkaas uga sii wadaan hadda waxaa jirta qofaa inta wax ku dilay xaggu u cararaya qofaa xag kusoo dilay xaggu u soo cararaya haddii sharci isku hadafa oo labada maamul ama hal maamul ha noqdo ama labadaba ha ahaadee lagu heshiiyo qofkaas hadduu xagga galana in la qabto hadduu inta galana in la qabto waxaan u malaynayaa ammaanku wuxuu ku yimaadaa dad isku hadafa dad sharci hal sharci ku wada dhaqma qodobkaas baa horta saldhig u ah in la helo ammaanka oo iskaga mid la yahay dadka wax dilaya oo dhibka sameynaya labada dhinacba inay qabtaan ammaanka aan ku soo koobi lahaa maasle waxaanu xaq u leenahay shir aan haweenku ku jirin inuuna dhicinba waxaanu xaq u leenahay reeme inaanaan u tumin nin kaligiis sharaxaa oo bacmadow wata oo raggeena ku laynaya oo wiilasheena ku dhamaynaya haddii uuna marka horeba nagala tashan marka dambe inaanaan reemaha u tumin baanu doorka koowaad inkastoo ay gabdhuhu hawlahaas badan ku hawlan yihiin waxyaabo badanna ay qabanayaan oo aan ahayn kaliya nabadeynta ay ka wadaan gobolka Mudug haddana waxaa jira caqabado badan oo marar badan hakiya waxyaabihii ay qaban lahaayeen caqabadahaas waxaa ka mid ah oo ugu horeysa bay'ada ay ku nool yihiin ama dumar ahaantooda in badan waxaa moodaa inay marka hore xaaladda dejinteeda iyo kicinta bulshada iyo waxyaabahaas oo dhan ee gabdhuhu space la siiyo ama waxaa moodaa la siiyo fursadda laakiin markii meesha ugu dambeysay la yimaado oo ama la heshiisiinayo ama go'aanka ugu dambeeya la gaarayo inta badan gabdhuhu ma yimaadaan waxaana keenaysa in ay jirto dhaqankii oo aan u ogolayn in ay gabdhihii soo fariistaan oo odayaashii wax la qaybsadaan oo ay go'aanka ugu dambeeya wax ka gaaraan nabadda waa inaan qofna ka seexan nabadda si yar laguma helo laakiin dhibaatada iyo colaadu si fudud bay u bilaabataa marka laga tago caqabadda dumarka kaga timaada dhaqanka waxaa jira caqabado kale oo fara badan ayna ka mid yihiin aqoonta ama xirfadda dib u heshiisiinta dhaqaalaha iyo agabka hawl socodsiinta iyo weliba gaar ahaan caqabado soo ifbaxa marka colaad si lama filaan ah u qaraxdo matal maantaan ballanna waxaanu ku ballannay inaanu halkaan isugu nimaadno inaanu wax qabanno intii ballantaas u dhaxaysay baa waxaa dhacay wax yar oo maaragtay ama waxbaa la kala dilay ama waxbaa la kala dhacay jiq bay marka noqonaysa arrintaas waa caqabadda koowaad oo aad u dhib badan oo markaas keeni weyda inaanu sidaanu rabnay ugu gudubno waxaanu rabnay inaanu qabanno waayo qolana xaggay jidhaa qolana halkaan bay joogtaa ballan baanu lahayn waxbaa dhacay si yarna u dhaca si yar xataa xamaal isku tooriyeeyey gaari dushiisna ha ahaatee
taagan xigiga halkayu tabinaya toloba intaad colahaadii iskaga tagtaan tubta nabdeed ba la raaca xumaan tirtira dadkeenna ka tuura tanfaararaqi xumaa tanasul sameeya arrima la kala tirsado tamartu walid haddii aan laysku tiirsanayn tusmeeya inaad wanaagood isugu tagtaan annagu waxaan idhahnaa ninkii gabadh waxbara qaranba waxbara waayo gabadhii intaasoo dhan hadday ka shaqaynayso oo ay soo saarayso iyadii waxa weeye ummadii waa wada waxbay baranaysaa hooyadiina iyadii dad bay soo beer bay beeraysaa beertii hadday beertii si fiican u baxdo dee beertii way hagaagaysaa